mas-uuliyiinta iyo dadweynaha deegaanka bixin oo ay weheliyaan maamulka iyo macallimiinta dugsiga deegaanka bixin ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa tafaasiir ka bixiyay war si qaldan loo adeegsaday oo lagu dhaliilayay waxbarashada dugsiga deegaanka bixin iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag waxayna dadweynaha deegaanka bixin oo warbaahinta qaar kula hadlayay deegaankooda ay cadeeyeen in warkaasi uu ahaa war aan hadda loo baahnayn isla markaasina waqtigiisii dhaafay taas oo ay sheegeen inay muddo sanad ku dhow ka dambeysay xilligii warkan deegaankooda laga duubay haatanna ay heleen cabashadii waqtigaasi oo ay ku doonayeen in loo daboolo waxayna waxbarashada gobolka Sanaag ka raali geliyeen wararka sida qaldan loo adeegsaday iyagoo ugu mahad celiyay waxqabadka xilligan ay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda keer ka wadaan deegaanka dugsiga bixin oo lagu kordhiyay dhismaha hal fasal iyo sidoo kale qalabaynta dhammaan fasalada dugsiga bixin waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka deegaanka bixin Saalax Ciise Xasan Geedi maamulaha dugsiga bixin Cabdulqaadir Xaaji Ibraahin iyo sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka waxaanu taaganahay iskuulka tuulada bixin anigoo ku hadlaya afka gudoomiye ku-xigeenka iyo kii gudoomiyaha gudoomiyahooda maqan tuulada anoo labadii afba ku hadlayo kii shicibka ku hadlaya waxaanu cadeynaynaa inaan warkaas war maanta bixin ka baxay aanu ahayn mid aanu mar hore duubnado inuu meel iskaga haysto xalay soo daayay annagana yarku nagu ballan furado de xilli hore aanu nidhi sii daayo ma ahayn maanta inuu sii daayo maanta uma baahnin kaad iminkana waxay noo ballan qaaday wasaaradda iyo hay'adduba waxay noo ballan qaadeen waa ka sugaynaa wanaag iyo nabadgelyo iyo sharafna waa naga dhaxaysa ceebna naga ma dhaxayso waxa yar noo la dhexgeliyana waa been iskuulkii galaaskii la dhisay waa kaas muuqdo oo la dhisaya de hawshiisa waa socota intii kalena waanu sugaynaa insha Allah oo inay noo imanayaan baanu rajaynaynaa waxaanu markaa cadeynaynaa oo sare iyo hoosba u cadeynaynaa haddaanu nahay macallimiinta odayada tuulada hadda waxaan loo dhisayaa hal kalaas oo ay dhisayso hay'adda keer waxa kale oo loo ballan qaaday dhismahaasi dhamaadkiisa iyo furniture-ka labada kalaas ee kale inay isa soo raacaan waxqabadkii wasaaradda iyo kii hay'adduba waa mid bilow ah iminka idiyooga horena uu ahaa muddo hore oo aanu kaga cabanayni in wax naloo qabto laakiin muddadiisii ay hadeer noqotay dheedlaaf oo waxqabadkiina socda iyo isagoo socda ayay hadeer video ka sii daayeen laakiin hadda waxa socda waxqabadkii hay'adda keer iyo wasaaraddu bay iska sii kaashanayeen iyo dhamaystirkii iskuulka oo naloo ballan qaaday dhammaan waxa loo wixii baahiyaad ay jiray ka horena waxa waqtigii la aan doow baahnayn in la sii daayo lama sii deyntii waxqabadkii baa la isku soo beegay hadalka inaan warbixinta inaan ku sii daayay ee la sheegayo sida odayadu sheegeen waa mid reer bixin duubay marka hore iyagoo ku doonaya baahiyahooda in loogu daboolo waqtigan iyo hay'adan iyo arrinka waxqabadkana way ka horeysay ma sii deyn maanta waxaan leenahay wax alla waxay noo qabatay iyo waxay noogu jira ma jiraan waana war khalad ah oo ku dirikatay mar hadaan maanta waqtigii u baahnaa in la sii daayo aanu sii deyn gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay Cabdulqaadir Axmed Xasan oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gobolkani waa gobol aad u ballaaran 200 iyo dheeraad iskuul ayaa ka jira inta wasaaraddu way ku dadaashay mid walba meel walba oo mujtamaca reer Sanaag joogo la gaarsiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ashamiga ku socda waxaan nimiyadoo dhismayaashiiba ku socdaan beenaale markhaati ku soo fogeeyay dhismayaashii cusba hal fasal oo halka looga bilaabayo macallimiintiisa loo keenayo iyo labadan fasal ee cusub ee hore u jiray qalabeyntoodii intaba keer baa ka ballan qaaday barnaamijkuna fooda ayuu ahaa marka in la carqaladeeyo waxyaabaha horumarka ah oo xagga la iska maro waa mustaxiil marka waxa weeye aad iyo aad baan u dhaliilayaa arrinta Farxad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Soomaali News TV deegaanka bixin galbeedka gobolka Sanaag